سؤال بنا لسه ويدي أنا كابلا بايا هدي ما أنت أرتين أدو شو بختي نصيب لعك فربضن أتقولي سليت دربدي بقى مش تاني محكوك صار لعيلة لعك هذا فربضنه صدق سنة كبدن أتكون ولاد الله طبعا والبرت العقد تيسك فربضناته إن لو شقيه بعد الدان لو شقيه واسكنا معنا لكن دي العقد بدن أي ما أنت أنا هلكن برنامج كده دي من سنة gabadhaasi waxay ka gaartay inay diraa shaqadii waan ka tagay waa soo daahay karfoonka bixin lahaa waxa dhan aan dhigi lahaa halkaas ka bixin lahaa goob joog waxa buu yiri aroos aan meherkii dhicin oo warqadiisa furiinka la sii diyaariyay ka warrab lagu tilmaamay أنا بكرر على وغيران شغالان مع سلامين شافتيرنا وكوك قبل عيك أنا habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa RTN meel waliba aad inaga socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baraha bulshada TV-ga RTN oo toddobaad waliba xilligan oo kale aad si toos ah uga daawataan xarunta telefishinka ee magaalada Nairobi habeen wanaagsan daawadayaasha ku xiran barnaamijka baraha bulshada caawa waa سويت تيمان دارت طبعا وبرنامجكي ugu dambeeyay sanada 2019 baraha bulshada waa si wada jira halkan idinka soo daadeeno aniga Farxiyo Cabdalle barnaamijku uu ka duwanaan doonaa caawa dabcan siyaabihii hore aad barnaamijku waa uu ka duwan yahay habeenadii la soo dhaafay tan iyo bilowgii 2019 barnaamijku waa aan soo daadihinaynay balse caawa baraha bulshada intiisa badan waxaynu ku soo qaadan doonaa oo barnaamijka aan ku qaada dhigi doonaa dhanka iyo baraha bulshada waxyaabihii loogu hadal haynta badnaa sanadkan hadda gabaabsiga ee sii dhamaanaya 2019 waxaana inta badan barnaamijka aan ku eegaynaa aragtiyada dadweynaha RTN ku xiran ay ka soo dhiibteen su'aal markaa dhanka Facebook aan ugu soo bandhigno iyadu ku saabsanayd daawada maxaad ku xasuusataa sanadka in sii dhaafay 2019 waxyaabihii ugu yaabka badnaa ay aad ku aragto iyo waxyaabihii adiga ku cajab galiyaba dad aad iyo aad u tira badan ayaa iyagu aragtidooda soo cabiray oo barnaamijka baraha bulshada caawa diyaar waa inay ka qayb qaataan oo qoraaladoodan aan halkan ku soo bandhigi doonaa qof waliba moogow waxa uu ka hadlayay waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee sanadkan hadda sii idlaanaya 2019 uu isagu indhihiisa ku soo arkay runtii qoraalada aan hayna caawa dadweynaha markay daawadaan dad badan la yaabi doono qof walba iyo aragtidiisa iyo wixii ugu yaabka badnaa 2019 sheekooyinka marka dadku ay soo qoreen kala xiiso badan oo dadku isku maskax maahay qof waliba waxbuu si gaar ah focuska u saaray oo diiradda u saaray oo isagu la yaab iyo cajiib lahayd dabcan sidoo kale waxa iyaduna qayb ka noqon doonta aragtida anaguba aan qabno maadaama diyaasha baraha bulshada ee barnaamijka RTN aan ahayn waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ama noogu la yaabka badnaa intii aan baraha bulshada daadiinayna iyo sidoo kale sanada 2019 kaba waan ku soo qaadan doonaa sidoo kale dabcan waxa qayb ka noqon doona barnaamijka wada ku jiro madadaaladii oo iyada habeen kasta qayb weyn ka ah taasi oo aan daawadayaasha barnaamijka dhextaalo uga dhigno sidoo kale waxa barnaamijka qayb ka noqon doona muuqaalo kooban oo aan anagu isniri waa kuwii ugu macquulsanaa ama dadka Soomaaliyeed ay baraha bulshada toddobaadyadii iyo waliba sanadkan la soo hadda dhamaanayaba ay ku hadalhayeen sidoo kale dabcan caawa barnaamijka waxaan ku soo dhaweyn doonaa sanadka cusub maadaama oo barnaamijka labaad ama kan ku xiga uu noqon doono sanadka 2020 dhexdiisa uu noqon doono kaasna waan ku dhaweyn doonaa kana waa lagu sii macsalaameynaa war filaya barnaamijkiinu caawa aad idin cajab gelin doono dad fara badan oo aragtiyadooda soo dhiibtana caawa ay dhalada hor fadhiyaan oo nin walba leeyahay aragtidii aad marka RTN Somali TV aad soo dhigatay caawa ma lagu aqriyay boqolkiiba 80 inta aragtida soo dhiibatay ee barnaamijka baraha bulshada diyaarka oo inay caawa qayb ka noqoto ayaan anaguna waqti badan gelin doona oo halkan aan ka aqrin doona qof walibana qoraalkiisa halkaas oo ka arki doona aragtida uu soo dhiibtay inta ugu macquulsaneed ayaan ka soo qaadanay gordho barnaamijka baraha bulshada ayaan toos u guda gali doona dhanka social media-ga marka la yiraahdo sanadkan la soo dhaafay hadba waxba la hadalhayay dadkuna aragtida soo dhiibteen waxaad muddaa caawa inay aad u kala gedisan tahay oo qof waliba wixii ka guuxayay ama ula yaabka badna isagu uu arkay oo taabtay marka uu farta ku taagay
farxiya waxaa iyadana qayb ka ah oo aan meesha ka maqnayn marka loo fiiriyo sanadadii wixii ka horreeyay 2019 sidii Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta ay u isticmaali jirtay baraha bulshada waxaad moodaa sifa ka duwan ama horumar ha ahaato ama wax cusub oo lagu soo biiriyay teknolojiyada ha noqotee in uu ka bedelan yahay oo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu taxanaayeen baraha bulshada waa hagaagayaan waqtiga sii dheereynina barnaamijkan markana si toos ah u guda galeynaa oo sidaan idin sheegnayba caawa intiisa badan aan ku qaada dhigayno sanadkan sii dhamaanaya 2019 waxyaabihii ugu yaabka badnaa ama dadweynuhu ay ka xasuustaan ama ugu xiisaha badnaa ee qofka soo maro su'aashaas oo markaa dadweynaha aynu u bandhignay dhanka iyo baraha bulshada qof walibana uu aragtidiisa ka soo dhiibtay iyo sida markaa isaga ay la tahay oo sanadkan sii dhamaanaya uu isagu ku xasuusan doono dad fara badan soo dhiibtay maxaa la yiraahdaa qof walba aragtidooda wuxuu xasuusanayo يا نصيب ويشي طبعا فرحية سيدا هرب uga dhawaajisay page-ka RTN Facebook waxa maanta ku jaacinay daawadayaasha ku xiran barnaamijka baraha bulshada inay nala soo wadaagaan waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ugu la yaabka badnaa qof walba uu arkay sanadan ama la sii dhamaanay 2019 oo baraha bulshadana ku arkay aad dabcan sidii dadkuba ay uga soo falcelinayeen muuqaaladii hore sheekadan dad kor dhaafay ilaa 1000 qof yaa ka soo falceliyay oo waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ama ugu xisaab badnaa ay arkeen message-yadooda la soo wadaagay dabcan waxaan rajaynayaa dadku waxay naga sugayaan inaan hore ugu gallo oo u sheegno ayaashadana u akhrino dabcan haddaan soo qabto warqadda ugu horeysa Mawlid Ahmed Nuur yar lagu magacaabo wuxuu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa Mawlid Ahmed Nuur oo jooga magaalada caasimadda oo ah dowladdeegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee Jigjiga واتا وسلامتهم بدمان بعد RTN يسجارة فرحية عبد الله مؤمن بأسلامي aad baan kaaga qaaday walaalo mid la mid ahna anigu hawadan ku soo marinaya طبعا isagoo sii wato qoraalkiisa wuxuu yiri waxa igu la yaab badnaa buu markii ugu horeysay oo magaalo ku taala Soomaaliya gaar ahaan cadaadad lagu magacaabo laga cunay ayax iyo markii ugu horeysay oo Ethiopia ku guuleysato inay satellite u dirto hawada sare waa qisooyinkii igu la yaabka badnaa ee aan sanadka 2019 ku arkay buu yiri baraha bulshada dabcan meelo kala duwan ama dadyo kala duwan baa si aad u falceliyay cunidii ayaxa ee magaalada Cadaado iyadoo ay markii dambana soo baxeen in deegaano kale cunitaankiisa laga bilaabay sidoo kale haddaan hore ugu sii socdo oo shakhsiga labaad si raacsado waxa ku xiga Yaxya Cabdullaahi Maxamed wuxuu yidhi assalaamu calaykum Farxiya Cabdulla Muumin iyo sidoo kale daadiyaasha barnaamijka wixii igu la yaabka badnaa ee aan sanadkan baraha bulshada ku bartay buu waxa kamid ahaa dhowr jeer waxaan dhageystay BBC-da buu ayax baa dhibaato ku haya deegaano badan ayuu dhageysan jiray Soomaalida wuxuu yiri marka anigoo Facebook iska dhex mushaaxaya waxaan arkay buu yiri reer Cadaado oo iyaga ayaxiiba cunaya dabcan waxaan maqli jiray buu yiraahdaa idaacadda BBC sidoo kale dabcan aan ka dhageysan jiray iyadoo la leeyahay ayax baa dhibaya beero Soomaaliyeed oo nafta u keenay oo daaqi dhameynay waxaan maqlay buu yiri baraha bulshada anoo Facebook iyo baraha bulshada iska dhex mushaaxaya dabcan ama iska daalacanaya yaa waxaaba ku xigtay iyadoo la leeyahay ayaxiiba magaalo Soomaaliyeed waa lagu hayaa isagii hawaya baba aad waagaag aad u maasan yihiin labada wiil oo noqday kuwa ugu horeeyay caawa nasiibka u yeeshay baraha bulshada yaa ku xiga oo markaa iyaguna soo dhiibtay aragtidooda ku aadan sanadkan sii dhamaanay wixii ugu yaabka badnaa ama waxyaabihii ka cajabiyay ee sanadkan sii idlaanaya Bes Jel wiil la yiraahdo ayaa nasiib u yeeshay wuxuu yiri waxa iigu yaabadnaa buu yiri aniga sheeka aan arkay buu yiri wiil yar oo sigaar cabaayaba oday jidka maraya canaatay buu yiri wuxuuna ku yiri wariyaa tuur sigaarka hadii kala aabaha ayaan ku sheegaya wiilkii baa ku yiri buu yiri aabaha hadii aad aragto u sheeg hanoo yimaado 2 sano ma arag in uu dhintay ayaa la sheegay adeer hadaad ba aaba aragto shab buu yiri guriga ha inoo yimaadeen odaygii oo aad u naxay baa si qiiraysan ula hadla wiilkii isagoo maslaxayo wuxuuna weydiiyay aaba halkuu ku dhintay baad maqasheen macna meesha ku dhintay wiilkii baa intuu waxa la yiri rubac jaad ah la soo baxay
oo kala furtay yiri aabba ma dhimane waa nool yahay ee waxaan hubsanayay inaad taqaani in kale laanshaadana afka hore u sii gastaa la yiri duqaas caadi wala galay marka wuxuu yiri aniga sanadkan sii dhamaanay sheekada cunuga dana wuxuu yiri waa cunug yar wax saas sameeyay nin weyn ma aha dabcan ila waa dareemi kartaa nin weyn oo socdo cunug yar uu arkuu dhahay alla ilahe maxaa la yiraahdaa daadiisa iyo wuxuu isticmaalaya ina qof weyn soo mar uu yiraahday maxaa jooji sigaarka afka marka waxaan hubsanayo yiri inay istaqaanaan duqa laakiin waa si fiican u watay aad qofka ku xiga waxa waaye Nuur Maxamed ayaa isaguna soo aragti dhiibtay wuxuu yiri magacaygu magaciisa waa Jaamac Maxamed ayaa leeyahay oo jooga Gaarisa wixii igu yaabka badnaa waan baraha bulshada ku arkay sanadkan sii dhamaanay wuxuu ahaa buu yiri wax la yiraahdo prank oo micnihiisaba aanan si fiican u fahmin marka laga reebo in la yiraahdo waa kaamira qarsoon oo dadka laga qaado kaba sii daran wuxuu yiri waxa lagu leeyahay qofka waxa lagu sameeyay maba oga kaamirada in laga duubayo maba oga yaab oo kaamiradu sawta wuxuu yiri hortaaga ayuu dhahay la duubayo ma aan seed ku arki kareen inuu yiri taas aniga igu darneed uu yiri wuxuu yiri yaab kulaha buu yiri meel baa lagu qariyay kaamirada oo hadii la qariyo oo wax meel wuxuu yiri meel iska taal ay tahay buu yiri yaa wadwadayo oo wacdooay kaba darna kuwa maalin kulaha waxaan matalaynaa nin iyo naag isqabo isku dhacsan kuye suuqa igu qabo kuleetiga ana aan okay yani wiilkan wuxuu ka sheekeeyay sanadkan sii dhamaan anigu baraanka ay ugu darnaayo dhahay oo aan fahmi waayo yiri meel uu ka socdo iyo meel uu socdo hadiiba wuxuu yiri la jooj yani kaamiradi meel lagu qariyo dhaysay wuxuu duubo saawlay hadii kale la sheekaysan sawteeda hortaalo dhaysay hortaalo waxyaaba la siiyay buu yiri dadku iyagoo la baraanki waan duubaynaa ama kaamirada kuleetiga igu dhig banaanka anoo joogo ya kaamiradi lafteedu waa soo socotaa buu marka qofkan wax laga duubay baraanka ama kaamirada qarsoon lagu sameeyay miyuusan arkayn buu leeyahay waxa soo socda dabcan way jirtaa oo sidoo kale waxa jira kaamirooyin aan la arkaynin oo qarsoon oo qofka inay ishiisa durba ku dhacdo uusan awoodi karin haduusan wixii la sii haysan oo uu og yahay meesha inay kaamiro ku xiran tahay mooyin kaamirooyin kale waxa jira dabcan yar yar oo qofku uusan ogaan karin lagana duubi karo muuqaalkii loo baahdo dabcan hore ugu sii soconayna haddii aan soo qabto qofka ama warqadda aniga ilabaysa ee kale waxaa soo qoray wiil lagu magacaabo El Mahamadi Cabdi Warsame wuxuu ku bilaabay assalaamu calaykum magacaygu waa Maxamed Cabdi Warsame oo jooga ama degan buu yiri waxaa igu la yaab badnaa buu yiri dabcan ma sheegin meeshii uu jooga ama uu ku nool yahay saacadan waxaa igu la yaab badnaa buu yiri sanadkan sii dhamaanaya ayaa ah buu yiri Soomaali oo aan weli wax iska bedelin sida siyaasadda dalka sanadkan sii dhamaanaya dabcan ayaa ah buu yiri sanad aysan siyaasadda dalku wax badan iska bedelin habdhaqanka bulshada Soomaaliyeed sidoo kale inkastoo ay jiraan buu yiri duruufo adag ayna ka soo gudubnay buu yiri haddana wax badan ayaa dhiman ayaan isleeyahay waan idin salaamay bahda RTN iyo TV-ga RTN iyo barnaamijka baraha bulshada dabcan anagana waan ka qaadnay dabcan haddaan farxiin maxay iga reebay waa bidhay socdo waqtiga ka waran xagaa ka arkisaamiya dabcan aad hore ugu sii soconaya waxaa ku xiga oo nasiib u yeeshay inaan markan qoraalkiisa akhriyo weli bin muumin طبعا ولي بالمؤمن كاسي طبعا رجعني ولي بالمؤمن دد كان بريا طبعا دد كان marka hore baraya kadib baan sheekadiisa akhrinaya magaciisa oo dhameystir horta aan barayo kadib ana dadka waxa u sheegaya qofka uu yahay waa Cabdiwali Abdullahi Muumin oo marka aniga walaalka iga walaalka ka weyn dabcan intaas aan rabina idin sheego intii farxiya way idin sheegtay waxa uu ku bilaabay waxa ay igu la yaab badnaa buu yiri gabar wariye ah oo Spanish ah ayaa waxa ay tabinaysay buu yiri barnaamijka Baqtiya Nasiibka 2020 ayadoo akhrinaysa buu yiri si live ah guuleystayaasha ayay waxay u soo baxay buu yiri nambarkii Baqtiya Nasiibka ay iyadu lahayd طبعا iyadoo akhrinaysa ayaa nambarka iyadoo ay qabsatay baa u soo baxay waxaana ku qornaa inay ku guuleysatay 5 milyan
oo euro lacag 5 milyan ah oo euro 5 milyan isla markaasna waxa ay way dabaaldegtay buu yiri una sheegtay in ay shaqadii ka tagtay kuna tilmaantay in ay rafaad ku jirtay shaqadeedii ku tilmaantay in ay rafaad ahayd dabcan oo isaga kalahaad iyo maxaa u soo daahnaa ayay maxaa soo daahi jirtay yani shaqada lagu la xisaabtami jiray dabcan waxa sii xigtay buu dabcan 5 euro markii ugu dambeystii يعني لعقت ما نقولين سيدي للربي أو شنكونو يورو شنكونو يورو لنعطي مركي لا قيبي دتكي جولستياشي كله طبعا جولستياشي كله مرة قبل الإسبانيش كا برنامج كا يا لو قيبي لعقتي شنكونو يورو كسو أيا كسو هذا مركي اللي قيبي ها مركي فيلي سي 5 مليون مركي إسلام مركي أنت بود تري شقادي وكتجي عيال إمه واحد طبعا وسيلة شكله حسها waxa ay tahay in shaqadeedii ay tiri waa ka tagay dhaadam ilaahayna iguma soo celin marba hadaan waxay tiri inta lacag helo gacanta aan ku dhigay tiri waan rafaadsana maxaad u soo daahday kala hadba naftiga ani shaqadii waan ka tagay marka la qaybiyana lacag aad u yar baahiyadii talo weliba moment in noo soo raayay gabadhan ay shaqadiisa uga tagtay weliba wax buu soo raaciyay waa si wadaya qoraalka ma dhamaynin markii la qaybiyay lacagtii guuleystayaasha waxay dib u sheegtay bay tiri inay shaqaalihii adoonka u jeceshahay weligeedna aysan ka tagin dabcan shaqadeeda inay adduunka u jeceshahay weligeedna aysan ka tegi doonin adinkadaa la yidhi waa su-aal baa meesha soo gashay dabcan idinka daadiyaasha barnaamijka haddii arrintan idin qabsan lahayd maxaad samayn lahaydeen cabdiweli muumin oo jooga turkiga farxiya cabdalla muumin kaweyn anaga waxaan isticmaalnaa dabcan soo dhaandhaana anaga sama walaalkii markuu kaa weyn yahay markuu kaa weyn shoodhahaygi maaragtaa leeyahay aad iyo aad ama shoodhahaygi marka dabcan waa shoodhahaygi waay aad iyo aad haddana turkiga u joogaa marka waxaan kuu sheegayaa su-aal baana la soo weydiiyey adaan kaa bilaabaya haddii maanta RTN adoo jooga baktiyo nasiib lacag fara badan aad ku guuleysan lahayd durbadii adoo meesha maxaa kugu soo dhici lahayd lacag hadda fara badan oo aad iyo aad 30 sano ka badan aad ku noolaato isticmaal lahayd dabcan walba horta lacagta iska fara badnaato in lagu shaqeeyo baahan haddaan lagu shaqeyn waa iska dhamaanaysaa laakiin haddii lacag badan ay maanta ana halkan barnaamijka daadiina gabadhaasi waxayba ka gaartay inay tiraa shaqadii waan ka tegay waa soo daahay karfoonkaan bixin lahaa waxa dhan aan dhihi lahaa halkaasa ka bixi lahaa macnaa inaad aarteen ka shaqayso طبعا ما حسوستين بشقاديسي برنامج waa ku jirtay marba waxaas waxaan intaan dhigan dhaadhici lahaa meeshii nasiib lacagta la ku tilmaamay أنا بكرر على وغيران شغالات مع سلامين شافتيرنا وكو قبل عليك أن كستان هو مركا وضسيو بن فقرت جدلنا طبعا وهو بقتي النصيب بقتي النصيب مرة لو حلقة أما الدولة هبحسوا أما شخصيات قناعسي أو مالقبين هبحيان waxaa laga yaabaa markaaba inaan hore lacagta lagaa siin jeeg baa lagu siinaya jeegii inaad dhaadhacdo aad soo qaado shaqaale kusoo noqoto maya ayagana haafkooda nin walba wuxuu helayan usii sheegaya si aysan ishii iga soo daba tuurin mogti ya kuwa badan waxaa jira daa maanta waa xelna daada wax siin cabdiraxmaan toona farsamada fardadaa iska jeedin may baasha horta la kala daran dadkuna dabcan isku mid maaha waa la kala lacag jecel yahay mar lay anigu waxaa u malayn lahaa lacag ma siiyeen oo lacag soo dhowraysa nimanka faraha kama taagtaageen waxaan ku oran lahaa qado soo doonta ma cadowsanina intaasoo lacag farabadan sano ku haynaysa markaa heshid xaafadda qadaa laydinku sameeyey qado soo doontaan calool baad ducaynaysa ma lacag nool bixi ah wixii badayso haddaan bixiyo dhammaan dambayso hal sana meesha ka go-aysa meesha 30 sana aan ku xisaabtamay dabcan waxaan rajaynayaa su-aashii una soo weydiiyey cabdiweli muumin أنا كجواد. هذه أنا ماشى فقرت إنك جدينا. سلامنا جوجنا. وهيك هالكسان كجسوا لابنو أصحابتي ورئيسي. مركنا وحن إيجي أنا قد نكيجا يودت كنصيبك ويا شيء عبد الفتاح أحمد أبو بكر أيان مركنا هيا وشوجا مقالة حضر قبل كبكول أيو أركتدي سنة جلسوا وذاقي وحيجوا يا بدنا أبو يرسنت كان سيدا معنا أي حوحود هاي oo la cunaayo
taasaan waxaan u dhiga garan waayo dhaharteen waa maasantihiin qofkan kale wuxuu yiri Sumayo waxay dhahday waxa igula yaab badnaa sanadkan cajiibka ahaa ereygii caan baxay ila meereysay dhahday aad iyo aad ereyga ila meereyso iyo heestii ila meereysay dhahday deeqa afar iyo qaraami ay soo wada qaadeen ay dhahday caawan haliisoo daayay dhahday heestaas waan ka xunnahay oo inaguna jadwalka inoogma jirto laakiin hala wada meereysto طبعا ارغاس هلا ميريستا waxaan rajay waxyaabo badan buu bulshada hadda qayb buu ka noqday طبعا siyaasiyiinta qaar adeegsanaya dad kale adeegsanaya oo hadii uu sidii qof ba wax ka doonaya waxaan ugu meereysaa wixii ka doonay markuu ka waayo ni waa la meereysanaysaa uu leeyahay ciyaarta طبعا farxiyo warqadan ma ku daraa inta dhaxtaalka aad haye ku dar aad warqadan xigtaan soo qabanaya محي الدين عبد الله علي ورقدن soo qoray waa محي الدين عبد الله علي oo joogay magaalada caasimada Muqdisho ana waxa igu la yaab badnaa buu sanadkan si dhamaanaya 2019 ayax aad ko dowladda Soomaalida Ethiopia diyaarado ayay u soo kareysteen buu inay ku laayaan labo uu kala qaadaya reer cadaado Somali goos dambaha goos reer cadaado buu Soomaaliya dabcan Soomaaliya ka wada goos dambaha ayay ku qabteen buu yani reer beledweyne xabad iyo inay cunaan isugu dareen inay xabad iyo inay cunaan ayay isugu dareen intaas baa igu la yaab badneed haddana waxaan sugaaba waa asagii oo kiliisa $3 kiliisa $3 la siisanayo ma sanadin RTM sida malaygo kale aad waxa ku soo xiga Ali Faid wuxuu yiri waxa igu la yaab badnaa sanadkan cunista ayaha dabcan inta badan daawadayaasha waxa ugu la yaabka badnaa waa ama Soomaalidaba waa cunista ayaha aad wuxuu sheegay oo aan ilaahay hadda wiili waxa igu la yaab badnaa ay cunista ayaha oo ay ilaahay hadda waxa la yaabanahay buu Soomaalida waxa ku kalifay inay cunaan ayaha xasharaadka wiili xasharaadka waxaan arki jiray wiili dad reer China oo cunaya wiili xasharaadka طبعا waxa u maleynaya xasharaadka wuxuu ka wadaa xayawaanada yar yarka ah ee duula marka ماما أيا أورانا يسوي لكن ماما هذا سي سوامالي ذا قيم بيكوتها هاي واحد سوي أما واحد وتاي أدو جيل لا ما ركترت تكل محاولنا الوا أنقريورت أنقر متقنا جيل ولا لا يلو أنقر أنا هو الرئيس سي عنق مركو دشنا وحيابها دم قفك مركو دشوا وحيابها هو الرئيس ده للسيو قف وحبال لو أنقريا طبعا مركا وابن لو أنقريا أدو dadku waxa uu maleynaya hadda sida yarkan oo kale inuu geel laayo arko waxay la tahay aad weyn oo aniga geel laayo wax weyn ay la tahay macaan bariga waxa xasuustaa meel aan deegaan deganeyn waxa dabcan dadka Soomaaliyeed qaarna waa lolay qaar waa geelay qaar wax bay dhawdaan meeshaas marka inta badan waxa ku badnaa reewabigana dabcan aad waxa u isticmaalaan looda geela uma dhaqdaan webiga marka joognay dadka reewabiga marka geel waa ku cusbaaba waliba dadka waaweyn ma aha ciyaalka yar marka yarka 10 jira 12 dadka intaas waxay marka geel arkaan intay soo carraan geedaha fuulaan yaa waxay ku heesi jireen geelo dhimo aninka wado dhimo nadaf way ka cabsanayaan ba geeli waxay leeyihiin geelo koreenba geelinta koreenba geelo dhimo ninka wado dhimo wada dhimo nadafa way ka cabsanay dhextaalkan aadi doona goro laakiin waxa jirta sheeko ila soo wadaagay telefoon ahaan wiil marka aan codsanin magaciisa la sheego laakiin aad u xiiseynay inuu ku soo daro sheekooyinka caawaan aqrinayna ee sanadkan sii dhamaanay 2019 aad marka wuxuu yiri magaciisa inaan qariyo iga codsaday waxa uu ila wadaagay dhacdadii ugu la yaabka badneed oo isagu goobjoog ka ahaa isaga goobjoog indhihiisa uu ahaa sanadkan sii dhamaanay 2019 waxaan xiiseynayaa buu yiri inaan baraha bulshada caaw ka arko aad ku soo qaadato walaalo hadan eegayna wuxuu yiri waxaan goobjoog u ahaa buu yiri aroos aan meherkii dhicin oo warqadiisa furiinka la sii diyaariyay ka warab aroos aan meherkiisii dhicin oo warqadii furiinka سهل قالوا سبحان الله
marka wuxuu dhahay wiil wuxuu yiri wiil baa iska tabar darnaa yani qarashaad ma haysan ha oo dhaqaale ma haysan uu marka gabar ku doonto guri ku dhigto laakiin nin iska shaqaysto laakiin biilkeeda bixin karo ahaa kadib guurkii waxa la yiri ehelkiisa familkiisa ayaa guriga u dhiseen yani jiifkii fadhigii guriga dhan waa loo hagaajiyay gabadhina waa loo doonay markii gabadhii la doonay asaga iyo gabadhan waa isla socdeen oo dad is soo fahmo muddo isla socdo xiriirkooda uu soo jiray muddo ay ahayd oo gurka ku heshiiyay marka waxa khilaaf baa labadoodii dhexmaraa la yiri hada waa guur familkii oo dhan ay qofba kiskii uu ka soo dhiibay waaye yani si dhib leh guri lagu dhisay waaye qofba uu haaf yar soo dhiibay marka xilligii guurkii la gaaray oo gabadhii arooskeedii la diyaarinayo labadu isku qanacsan yihiin ay wax isku khilaafeen la yiri meesha horta arooska lagu dhigayo gabadha waxay tiri familkayga meesha joogaan lagu dhigo xaga hal la geeyo wiilkina wuxuu yiri aniga familkayga meesha joogaan oo adi aan joognana aan ku wada dhigano la iyadii asaga isla joogaan qariiqira la gaaray adiga wuxuu yiri hadaba waa tahay haday saa tahay yiri markaan is guursano aniga familkayga ayaan kula dajin doonaa wadaad waxaan qorsheynaa inaan meel yar kaligeen degnay familkayna wada degina marka dabcan isaga ka ogolaaday tiis waxa la yiri reer ku laba kuma wada dhisnaa kadib markii uu dhahay baa la yiri ani familkaygan kula dajinaya ayay gabadhii waxay codsatay inuu familkiisa la dajino meel gooni dajiyo balse arooska meesha ay dhaysa magaalo kale qarashkeedana waa taqaana in laga soo celiyo meeshii ay wada joogeen aroos yar lagu dhigo adiga isjijiid badan kadib waa isfahmi waayeen khilaafa soo kala dhaxda gurigii waa la dhigay gabadhii waa la doono lacagtii doonista waa la bixiyo alaabihii reeraa soo qaaraameen gurigii waa la dhigay isfahmi waagina markaas uu imaaday marka wuxuu yiri kadib waxa dhacday buu yiri in wiilkii ay familkiisi u waceen anigana goobjoog baan meesha ka ahayo dhahay wiilkii familkiisa waa wacay ragii baa u wacay waxa la yiri niyo gabadhan saan maanta ku rafaadinaysa guriga lagu dhisay in rafaadka laga soo maro qofba uu kis keenay hadiiba xalkeedu uu saan yahay gabadha gabraha heynaysa ma iska siidaa haddaba marka lama sii deyn karo Soomaali dhaqankeedana waa taqaanay gabar la doono lacagtii doonista laga bixiyo familkii wiilkina gurigiiba ay u diyaariyeen hadda qasaarinta la eegne lagama talaabsan karo sideen wax yeelnaa baa la yiri dhahay kadib waxa dhacday buu yiri in la yiri gabadha meherkiina ha dhaco meherkeeda walaal hala meheriyo guriga ha timaado toddoba marka ka baxdana warqad gacanta ka saar noo kala wad noo kala kaxay marka sheekadii